asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii diblomaasi waa barnaamijkii habeennimadii xalay ahaa ee naga dib dhacay cillad farsamo awgeed. barnaamijkan ayaa waxa uu yahay midaynu kaga hadlayno dowladda doonaysa inay ka mid noqoto midowda Yurub shuruudaha looga baahan yahay. waxaynu ku qaadaadhigaynaa qodobada la doonayo inay gebi ahaanba meel mariyaan haddiiba ay u hanqaltaagaan inay midowga ku biiraan. ugu horraynba daawadayaal, madaxda dowladuhu marka ay doonayaan dalkooda inay ku daraan urur caalami ah amaba ay la midoobaan dowlado kale, waa kuwo ay ujeeddadoodu tahay inay horumar u soo hoyaan dalkooda, dadkooduna ku naaloodo dhaqaale iyo weliba amni. inta badanna madaxda adduunku waxay sameeyaan arrintan, dowladahoodana dowlado kale ku daran marka la doorto, ballanqaadyadaasuna ay ka mid ahaayeen ololahoodii doorashada. haddaba barnaamijkeenani waa midaynu midowda Yurub iyo ka mid noqoshadiisa diiradda ku saarayno. waxaa jira dowlado ka badan 9 oo haatan iyagoo dhammi u hanqaltaagaya muddana ku howlanaa siday ururka midowda Yurub uga mid noqon lahaayeen. dowladaha ayaa waxay kala yihiin dalalka Georgia, Kosovo, Bosnia Herzegovina, Ukraine, Moldova, Albania, North Macedonia, Turkiga, Serbiya iyo weliba Montenegro. sawirkan idiin muuqda waa 4 shuruudood ee gebi ahaanba laga doonaya inay buuxiso dowladda ka mid noqonaysa midowda Yurub. ma jiraan wax shuruudaha oo kale oo lagaga mid noqdo midowga. 4 shuruudood ayaa waxa ugu horreysa dowladda doonaysa inay ka mid noqoto midowda Yurub inay midowda Yurub u gudbiso qorshe dhammaystiran iyo u hanqaltaaggeeda inay doonayso inay midowga ka mid noqoto. codsigooda waxa uu noqonayaa mid markiiba komishinka u taliya midowda Yurub uu guddoomo, kadibna uu u gudbiyo baarlamaanka guud ee Yurub. baarlamaanka guud ee Yurub haddii ay oggolaadaan, dowladdaasu waxay noqonaysaa mid si rasmiya ugu sharaxan inay ka mid noqoto midowda Yurub. haddii ay diidaanna waxay noqonaysaa mid halkaaba ku harta. arrintaasuna waxay dhacday aynuna xusi karnaa 1987kii, xilligaasoo dowladda Morocco iyadu gebi ahaanba ku taalla qaaradda madoobe ee u hanqaltaagtay inay midowda Yurub ka mid noqoto. wax yar dabadeed codsigeeda markay dhiibatayna waxayba ku hartay kaalinta koowaad oo baarlamaanka Yurub waa ay diideen. haddiiba ay dowladdaasu qodobka koowaad ka gudubto, waxaa laga doonayaa gebi ahaanba shuruucda dalkeeda inay la sinto kalana mid dhigto shuruucda lagaga dhaqmo midowda Yurub. marka ay ku dhawaaqdo dowladdaasu inay gebi ahaanba shuruucdii dalkeeda beddeshay lana sintay kuwa lagaga dhaqmo dalalka xubnaha ka ah midowda Yurub, waxay si toosa ugu gudbaysaa buuxinta shuruudda saddexaad. shuruudda saddexaad ayaa waxay tahay mid baarlamaanka iyo komishinka Yurub uu hubinayo dowladdaasu inay la sinaatay 35 qodob ee lagaga dhaqmo midowda Yurub. 35 qodob ayay mid u baarayaan. 35 qodobna waa kuwo la xiriira gebi ahaanba nolosha dadka dalka doonaya inuu midowda Yurub ka mid noqdo. waxayna la xiriiraan shuruucda xorriyadda diimaha, dhaqaalaha dalkaasu inuu fadhiyo, dadkiisu inay yihiin kuwo dhisan, horumarna uu ka jiro. sidoo kale dowladda waxaa laga doonayaa inaanay wax cadaawada la lahayn dowladaha soodimaha la leh, waana qodobada ugu daran oo ay dowladaha u hanqaltaagay inay ka mid noqdaan midowda Yurub ku haraan, maadaama dowlad waliba ay dhul, cir iyo badba isku hayaan dalalka ay soodimaha la leedahay. qodobka ayaa midowda Yurub looga yaqaanaa qodobka gorgortanka, waana ka saddexaad waxaana ka dambeeya oo keliya qodobka 4 oo ah inay oggolaadaan baarlamaanka dalka doonaya inuu midowda Yurub ku biiro iyo weliba baarlamaanka Yurub. waana kan ugu fudud 4 qodob, maadaama dowladdaasu ay tahay mid 3 qodob ee hore adkaa gebi ahaantoodaba soo buuxisay. haatan waxaa idiin muuqdaa dowladihii hore aynu u soo xusnay magacyadoodu qodobyada ay taagan yihiin haatan. dowladaha Georgia, Bosnia Herzegovina iyo Kosovo waa kuwo maraya heerka koowaad, welina codsigoodii aan la aqbalin. dowladaha Albania, waqooyiga Macedonia, Moldova iyo Ukraine waxay ku jiraan qodobka 2, waana dowlado si rasmiya loogu oggolaaday inay yihiin musharaxiin u taagan inay ka mid noqdaan midowda Yurub. shuruudda saddexaad oo ah tan ugu daran waxaa ku jira dowladaha Serbiya,
Montenegro iyo weliba dalka Turkiga. Qodobka saddexaad ayaynu soo sheegnay inuu yahay kan ugu daran, waana kan ay dowladda Turkigu soo dhaafi laadahay ilaa iyo 1999kii, inkastoo dowladda Turkigu markeedii ugu horreysay u hanqaltaagtay codsigeedana gudbisatay ay kaga mid noqonayso midowda Yurub 1987kii, balse qodobka saddexaad ayaa waxa uu noqday mid ay soo dhaafi weyday wixii ka dambeeyey 1999kii. Qodobkan ayaa waxa uu yahay kan ugu adag, waxaana laga doonayaa dowladda gebi ahaanba inay beddesho qawaaniinta dalkeeda lagaga dhaqmo. Waxaanuna ognahay dowladdan inay tahay mid islaama, shuruucdeedoo dhan aana u beddeli karin si ay midowga uga mid noqoto. Waxay midowda Yurub ka doonayaan gebi ahaanba inay fasaxdo wax walbo diinta islaamka ka soo horjeeda. Waxaa laga doonayaa dowladda Turkigu anka inay aqoonsato in dadka isku jinsiga ay isguursan karaan. Waa inay meesha ka saartaa gebi ahaanba in qofka la dili karo dembi walbo uu galo. Waana sababaha dowladaha reer galbeedka had iyo gooraale waxay dhaqaalaha dalka Turkiga u soo weeraraan, maadaama qodobkaa saddexaad ay ka mid tahay in dowladda dhaqaalaheeda iyo lacagteedu ay fadhido aanay noqon mid hadba mar hoos u dhacda. Waana waxay ugu talagaleen in dowladdaasu ay halkaa dhaafi weydo, weligeedna ay ahaato mid gorgortanka kula jirta midowda Yurub. Qodobka afraad waa kan ugu fudud sidaan horeba idinku soo sheegay, waana qodob isagoo dhammi ka kooban in baarlamaanka Yurub iyo baarlamaanka dowladda u hanqaltaagtay midowda Yurub ay wada saxiixaan. Dowladdaasuna wixii xilligaa ka dambeeya waxay si rasmi ah uga mid noqonaysaa midowda Yurub. Daawada, waxaan filayaa muuqaalkan inaad si fiican uga bogateen, fahanteenna qaabka looga mid noqdo midowda Yurub. Waxaan kaa codsanayaa muuqaalka inaad inoo laygarayso, inoona sii sheergarayso. Haddii aad tahay daawade aan weli kanaalka ku soo biirinna, fadlan ka fikir inaad nagu soo biirto si aad u daawato muuqaallo midba midka uu ka dambeeyo uu ka sii tayo sarreeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.